موسى عليه السلام reer masaakiin uu ilaahay ka dhaliyay ilaahay uu ciisay nabi Muuse markaas waliba fircoon عليه اللعنة wuxuu ku manaamay raadaan culimada qaarkood maadaama reer bani Israa'iil uu guumaysanayay magaalada Masar dhinac buu ka dajiyay dhinacna qibtiyiinta ayaa deganay oo xukunka qibtiyiinta ayaa iska lahaa reer bani Israa'iil uu guumaysanayay oo baduhu kaga dul talaabayay iyaga raggoogana hadduu uu leeyin jiray gabdhahoogana uu deysan jiray wuxuu ku manaamay baa la yidhaahdaa habeenada kamid ah dab reer bani Israa'iil dhinacay ka degan yihiin magaalada ka soo kacay oo mulkigiisii iyo dawladiisii baabi'iyay saxaradii iyo kahanadii buu u yeedhay riyadaasaan arkay halaya cabira buu yidhi markaasay ku yidhahdeen wiil baa u dhalan doona reer bani Israa'iil wiilkaasi wuxuu sabab u noqon doonaa inuu mulkigaaga uu zuuliyo waliba muddadu dhalanayay bay sheegeen waxaan u maleynaynaa bay ku yidhahdeen qiyaastii dhowrkaa sano gudahood ayuu ilmahaasi adduunka imanayaa fircoon awoodiisi wuxuu iskugu geeyey ilmahaasi inuusan adduunka imanin sanad walba islaan kastoo reer bani Israa'iil oo uur leh askari baa albaabka loo dhigayay hadday wiil dhashana uu gowracayay hadday gabadh ay dhashana gabdhaha weydiisanayeen inna fircauna calaa fi lardi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إلهي بقرآن كأنه وشيء فرعون أرلد الإحداد أيوكو غوكو كبري ونفسادية أرلدي تدكينا وحكدك تلابا قبيل قبطيين تو قبيل كيسينا وقربوا غادي ريبان إسرائيل نوقو ميساني ويلا شودنا أوليني قبله غنا أوديساني بالله markaasay madaxdii reer qibtiyiintii waxay yiraahdeen yaa fircawn reer bani Israa'iil way noo shaqeeyaa beeraha ayay noo falaan webiga ayaan kaga talaabnaa dhulka aqalada noo dhisaan haddaad sanad intii u dhalatay wiilashooda haddaan layno gabdhahooga maxaan ku falanaa keliya xayala sanadaaf haddaba hala gowraca leeyahay ubadka sanadna hala daayo sanadkii la deynayay ubadka Haaruun baa dhashay calayhi salaam nabi Haaruun sanadkii la gowracayna ayaa dhashay Muuse calayhi salaam shakhsigii la doondoonayay ilaahay wuxuu faysalay inuu dhasho sanadkii la raadinayay albaabka loo taagan yahay Muuse hooyadii oo leeyahay ma dhashay waan ka dhalinaynaa oo kaadiye wali ma foolan be jawaasiisna magaalada lagu sii dhex sii daayay waxlii waxay ilma dhalo dhan soo hubiyay lacagna ku qaatay haday wiil dhasho noo sheega haday gabadh dhashana soo sheega Muuse calayhi salaam hooyadii waxay dhashay wiil bay dhashay waxay dhashay isla markii way cabsatay laana wuxuu dhashay sanadkii ubadka la doondoonay wiilasha in la gowracay si ay yeeshay garan weyday aqalka dhexdeeda ku haysata hadana qalbiga baa fadhiisan la hooyo waa beer weeyaan وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إلهي قرآن كأيو إلهي موقعك صعدو نوشيغي أم موسى عليه السلام وحي إلهامية أي إلهي وحي وضوح الله أمري إن إلمهيغا أقل كيغا دحديد إنتي كو هايستو أي وليب الناس كان هلكا يكون نوجسو وأمر أقل كدحديس كو هايسو ناس كنا كو نوجو هلكاس وأمر أمر كهدو كو أدكادو وقلبك أجو فريسا وايو ويا تهيو بير باتها وكل واحد سليلة ولا دح وريقة يا مقالة فألقيه في اليم بدا إسكاك توربا لقولي بدا كتور أمر كلا ولا أمر كورما هايسو ناس كان نوجي هداد بقديد عبشتنا بدا كتور بدا المير ولو كتور كورما صندوق بيسميسي بدي بكتور تاليني مركز إلهي لبنا إلهي تبارك وتعالى وقدقي ولا تخافي ولا تحزني هنا عبسن بالغو يري هنا مرغوني لبا بشارنا والله بشاريه وحا لغو يري إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أنك أيا أساق كوسو عليني دونا وليبا مرسلين تميد كميدا كدقينا بإلهي يري لبا أمر لبا نهي يلا باب بشارع علماء اليادين آيات الشرحية صندوق بقبطي وكردي
ويتورتي ووبيجي واحد يقول لك تبركة وبيجي جيش كيف فرعون قصر يا فرعون حاجة بدك إلى لنا يي وحي أركان صندوق ير أو بدأ دوشة دول صبينا يبيها دوشة ده ويسوق قادين ويفران وحي أركان المير أو أن أوينين أو إسكع عياريا أو إسكع دحفر يا مارك أنا صندوق الحديث مركب ويفرحون وحي لادين ما أنت أياد إنك كل بانتين وحد كل بانتين علمه يرايا بقر كورادين إنك ما أنت قعنتين أو صوق الله وجين دونه إنك ندرجت بالينوسين دونا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا بين حين عيدا كيف فرعون باقات ويهلان حي هلان وهل أقاتين بالليلي وحي قاتين عدو جيبي قاتين بالحيلي عدو كي ونقول الدولة دنبابين مروق قلين كي بيقاتين بالحيلي قصر كيف فرعون بالكياني فرعون بالهردق مركبة وحولي وايسقي هل يدلو مر عليه مركب فرعون لو ديبي بالعلمي يرى فرعون يديبي صدا مركب فرعون قبته بالعلم موسى وحو ايغا سيدي نوين بو ايغا فرعون وجيس سباح ولا يهو كلا وانا سنة الله واني قادقا دواني بدال كيد قلي يا daymashada ilmaha yar uu sida adag uu fircoon u daymoonayo ayaa fircoon ka dhawaajay soosi ka siisay dilaguud markiiba dilaguud imraatu fircoon oo qasriga xagga sare joogtay baa ku tiri la taqtuluhu hadilina bay tiri ilmaha yar asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada qurratu aynin li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana war ilmu inoo noqono anaka korsanayno indhaheena ku qaboobi doonee hadilin ilmaha yar inuu anfacaba laga yaabaaye markaasuu kani ku anfacaya aniga indhihiisi male adigu qaada uu geeyay ya haji warwa ilma sabiya may sabi ma habudi soo dhaadhacday iyadii buu u dhiibaa Muuse marka loo dhiiba Asiyana sidii ilma yar oo kale weeyaan iska ciyaaraya iska ooyay haduu doono mar alle markuu ila fircoon bal aniga ii dhiibna ay u tuurtay walaal war baleeg ilmahan ka baqaysaay oo dhabta fircoon soo galana nabi Muuse saasoo buu eegaba leeyahay waa markay tiri Asiya war ilmahan hadilin ha ka cabsan na eeg waa kan ma nadarkay lana waxba ka qaadi ma waa cunug yar waxa leeyahay waxay u dhigtay bal timir iyo dab bay tiri bal labada ku jirrab ilmahan sabi inuu yahay ku tusina kala bay ku tiri teebu qaatay markaa dhamacdi baa ilaahay u galiya gacanta afku gashaday halkaasoo luqnada ku yeeshay nabi Muuse alayhi salaam markaas ay timaleeg meelmaha timir iyo dhamac kala saareen baad ku leedahay ka baqaya bas waa yaadu iska qaado buuri qasrigii fircoon baa durba Muuse lagu hayaa waxlii wixii la siiyo oo dhan baad iyo biyo iska diidaa hatta waxa la ilaamiyay islaantii naasiheega ay irmaayeen aan ay ka soo baxayaan u yeedhay baa lagu yiri islaanta uu ilmahaasi caanaheega uu naas ka nuugo naaskeega caanam ka nuugo mushqaayad baa la siin la dumarkiiba magaalada buuxa moogta uga tooga laga wada gowracay caanuhu way wadayaan ilaahay wakiila wa harramna alayhi almaradi'a min qabl islaan kasto loo dhiibo Muuse alayhi salaam ilaahay baa u diiday naaskeega inuu caana ka nuugo may u buulada may tukasto loo dhiibay buulada amarka ayaa iska amarkaas oo amarka adduunka amarka ilaahay ba markaas uu mar walba xaq saacada wada hadlayna amarka ilaahay baa soo caalamka amarka ilaahay waa nidaamka ilaahay qaybiga nidaamka ilaahay qaybiga isha bini aadamku ma qabato sida ay ruuxda bini aadamka jirkiisa ku jirta isha lagu arki karay safkii bay soo gashay hooyadii inantii musalla dhalatay baa ku tiri Muuse aan arkayna mar hooyo soo gashay safkii bay ku jirtaa hooyadii mar alle markuu Muuse hooyadii arkay buu sida u farxay had waa loo dhiibay iyadii markaas oo aan naaskeegii buu markiiba qabto halka buu caana ka keenay markaas la islaantana caana macaan wallahi tana caana macaan haye saddex arrimood baa loo ogolaadaa la yiri
lacag in lagu siiyo qasriga boqorka xilli allii xilliga doonta inay soo gali karto hadday rabtana inay gurigeyga intay la tagto ciidan ilaaliyana la siiyo wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu rabu lcaalamiin mashiicada ilaahay baa sarraysa mashiicada ilahay doonis kale ma jirta macaalam gaalaa sidan tidhi iyo dowlad baa waxaan tidhi may amar ilahay baa socda adduunka amrullah way qaadatay aqalkeygii bay la tegtay halkaasay nebi muuse kusoo haysay ilaa uu caanaha daynayay ilaa uu hadday tole cunto cun bilaabayay deedna qasrigii buu kusoo noqday 30 sano nebi muuse qasriga fircoon ku dhex noolaa u arkaa reer bani israa'iil sida loo gumaysanayo uu ka murugoodaa kii uu shalay toole fircoon isaga daraaddii uu 70,000 ee wiil u gowracay ayuu aqalkiisa ku dhex korinaya fircoon kii uu shalay toole fircoon ciidanka dhan ee amniga uu shaqo geliyo lacagaha ku siiyay in la soo qabto la gowraco ayaa isaga nebi muuse ilaalinaya oo la socda markuu magaalada dhex marayo aw aqligii fircoon markaa وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم دابة أرندا كركيكا دقاقا ساما جرتو هدي جرتنا با إلهي ليهي أنا كافود دهينا يا فود دهي مركادتك وحبين الزمن كافلقادين زمن مجرو زمن كان دنوا إلهي أمر كي سوين وحصوا على العالم دون استيلاح يحيي من يشاء يميت من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء موسى عليه السلام نبي قاس إلهي مركضون إنه النبي إنه رسول وكدقه إن إرادة إلهي بسعوت عالمك 30 سنة مركو قصر فرعون وكل نولا فوحو كل نولا عذيبا لنولوش التعيشين تلين حياة المتعيشين aqalada boqorada ku dhex koray waxaa lagu yaqaanaa dad shilshilis qurqurux badan cadcad dhibaatada aan karaynin kulayl uma adkaystaan qabow uma adkaystaan lug uma adkaystaan ilaahay markaa wuxuu damcay nebi muuse ile rasuul laga dhigi maayo ilaa horta mujaahado la geliyo mooyaane mujaahado tarbiyad ila horta waa la tarbiyadaynaya jirhkiisaa la dhisaya marka u horeysa deedna 2 nin oo islaynaysa waa kii yidhi kala qabo ninkii qibdiga waa kii feedhay فاركي سيبو كدنت فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين دنا واكين ريب بنين قبطيين تكجري او وناك سنابا نبي موسى ويمدو انه حوحو كيري يا موسى ان الملأ لا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك لمن الناصحين رقي فرعون يا جيش كيسي ويكون مكريا اني كدلان وانا لو اوغاday inaad tahay reer bani Israa'iil oo isqarinaya ya wana lagaashi ka sanaa in badan anu waa ku nasteexayna dalka ka baxbo ku yiri xagga ay markaa Madyan buu Nabi Muuse u baxay Madyan Fir'aun qabashadiisu ka baxsanaya laakiin iraadada Ilaahay baa socotay iraadada Ilaahay waa maxay Ilaahay wuxuu damacsan yahay Muuse inuu soo tarbiyadeeyo لأن إسقوا الرسول النبي وأرض مصر كسو عيشه تربيته عجيب قصة دواد مقاشين علماء دين بدن بعد كم مقاشين وقت كذا ركسنتين طبعا سنة النبي موسى واكي عليك شعيب سوجر عليه السلام تزرم طبعا سنة صدق كي هاري طبعا كأوجي وامسا أفرتن سنة مركو النبي موسى وأجري أي إلهي كدق النبي رسول الله آياتنا لصوصي وشيسي قعنتيسي كلام الله هذا الكلام بتوصل مقلع فرعون هكذا قبل لقول يسوع أنا كأمريكا فرعون أمريكا وصل أمريكا سوق مصر تعلم كذا موسى عليه السلام دولة دي فرعون أفرت بقول يا سنة جرتي عليه وحكم بابيه ودعوة بكم بابيه حكم بابيه الدعوة إلى الله وحكى لما قال النبي موسى
وصلي رسولك دعاه إلى الله إلهي حق سويا بس لبد دال بنبي موسى الله صلى الله عليه وسلم لبد دال قوة جهن ريب بن إسرائيل هي دال قوة جهن أقباط فرعون وجيشه وقومه ريب بن إسرائيل والنبي يعقوب نانستيسي لبي تمكي ولا النبي يعقوب ودلائي بكسو جدا لبي تمكن خير لليه وريب بن إسرائيل واحد دلقا كم متيستين وحكا لماها وتركوا الدين دينتي بكتغين مي حي كتغين طريقي آباياشود بكو إعلام دين با الله دورتي دينتي الله دورتي بهالكا انت اسكا دقاء بأدوية كقاتين إلهينا فرعون بمرها كسل لدي فرعون وضلك النبا وحاله وحو كسو قليبا اللي يري سفر بوكوي بدا وضلك النبا wuxuu arkay wadan musuqmaasuq lagu wada nool yahay oo nin walba askari walba madax walba meeshuu joogo uu dadka iska dhaco cuno markaas uu fikro boos banaan buu ka eegay wuxuu shaqadee banaan oo qabuuraha banaan buu wuxuu bilaabay qabriga albaabka laga galayo intuu gogol dhigto qof alle qofkii meydii qabuurta la gelin lacag ka qaado kuwii madax ee ubadkooda ay dhinteen lacag badan buu ka qaadaa ويا تهي لما يدادو لأن ودك النبى قدوا المسوماسو نين والبا ماشو جوجو dadka ka qaato iska cunaa marka isaga oo garaabeen waxa ay kana doo qabuuray dul fadhiistay wuxuu doonaa ha iska cunoone ilaa baa la boqorkii dhanay wadanka xukumayay ilmihiisa baa dhintay markuu arkay fircoon madax iyo inta Soomaaliyeed ciidan buu shurtaag isbaaradiisu buu dhigay haye intaasoo lacag wad bixsan weena lama aseemeydka war boqorka inankiisa waxa dhintay yeelkadii buu halka ana ka boqorin buu qabuuraha boqorkii baa warsiya wuxuu doonay waa la siiyo lacag dhan baa loo tuulay markuu boqorku qasrigiisa ku noqday buu fikro wuxuu yiri war ninkii dhanaaye anakoo dalka xakuno oo ciidankii dawladii leh qabuuraha nagaga qaaday cashuurta bal u yeer ayaa dartay ninka والله يا فرعون بقرك كدونا يا لقي maalintuu shaqada bilaabay ilaa joogada maalinta uu joogo wuxuu lacag u riibo fircoon wataada leeyahay sanduuq dhan oo lacag ah boqorka ku yeeray hortay way kan shaqada ayaa ku dirtay shaqada dalkan u shaqeeyay buu anagu danta guud baan u shaqeeyaa oo maxaad haysaa de waa kan waxa lacag u riibo leeyahay boqorkii baa warday meesha lacag baaba taale ha nusna adiga nusna aniga la buuri waa shaqo fiican tahay buu adiga halka lagu dayn maayay dawladda ku soo biiraysaa wuu si lacagta loo sameeyaa taqaanaa buu hal kaas oo farco ka galay dawladda reer bani Israa'iil baa ilaa markii dambe boqorkeedna markuu dhintay meesha isagu la wareeyo marka ummaddu markay diinteedii iyo shariicadii Ilaahay ugu talagalay ay ka tagto fircoonku ma aduu kaasi u dhintayna faraacintu zamanka soo jiraan waqti yana Ilaahay markaa mid ku saliidiyay kana marka Muuse alayhi salaam isaga oo faqiira oo miskiina oo adduunyo aan haysan oo 10 sano adiga soo jiray oo hooyadii iyo dadkiisii qaraabadiisii fircoon u guumeysanayo dawladii dhanayd ee Masar jirtay faraacintu ay ka talinaysay Muuse alayhi salaam ma baabiina Ilaahay baa baabiyay laakiin muqaabalada uu nabi Muuse fircoon uu kala hortagay waxay ahayd dacwad wax leeyahay oo kala hortagay dacwad ولما فرعون موسى هلاقي سمر بينه هداية سوك فكري وإلهي جل وعلا مركب فرعون موسى ودري وكي كلها فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له مركدو تكتان فرعون وأن هذا وحوما دقيسته وتقو أو ماركتاني يعني هذا الكأود بعير إلهي لقى يا بينه وأنتم إلهي كبقى الله إلهي رحمة سبلاك وأنك إله نمشي كان يبو إلهي نبي موسى وهداياتك أوصيني مركو دعوة قارسين يوم إلهي مركو دمعي ريبان إسرائيل قلقوا إنو دلق إنو كسارو أفرتن سنة دعوة كسو عطيبا لغي فرعون أفرتن سنة فرعون تنا ربوبيتك لها الله ريبان إسرائيل وحو نبي موسى كلها الله بل الرجوع إلى الدين إن لطوبتك إنو الدين تلوصو نقض
fircoonna wuxuu u bandhigaa diinta islaamku u bandhigaa reer bani israa'iilna wuxuu nebi muuse u bandhigaa toobad iyo takyiir alacmaal inay toobad keenaan camalkoogana ay bedelaan oo reer bani israa'iil nebi muuse waxa uu ku leeyahay ma rabtaan inaad ka baxdaan qaxootinimada ma rabtaan dulliga inaad ka baxdaan ma rabtaan ducfiga inaad ka baxdaan ma rabtaan gumaysiga inaad ka baxdaan haa waan rabnaa toobadkeenu ilaahay u toobadkeenu camalkiina bedela fircoon iyo jeyshkiisa iyo qoomkiisana nebi muuse wuxuu ku leeyahay may adu rabbi ma tihid rabbi waa allah weeyaan 40 sano markuu nebi muuse dacwadda ku wada fircoon reer bani israa'iil iimaankoodii iyo salaadoodii iyo yaqiintoodii uu dhisayay yaa 40kii hore waa imisa 80ka markay gaadhay ay reer bani israa'iilna waliba nebi muuse ay ku leeyihiin aawe habaarkii aad fircoon aad habaartay ee waliba laynoo jawaabay ilaahayna uu ku yidhi ducadiina waan aqbalay aawe ducadii la aqbalay bay ku lahaayeen markaasuu nebi muuse ku lahaa ducadii waa la aqbalay laakiin halaaga fircoon aniga gacanteeda kuma jiree halaaga fircoon mashii'ada ilaahay buu ku jiraa goortuu ilaahay halaagaya isaga u taallaaye ininku laakiin anigu waxaa lay amray inaan diintaa ilaahay ii soo saaray aan ku toosnaadee ininkuna kaalayo ilaahay tala saarta haddaad muslimiintiin buu ku yidhi habeenada ka mida ayaa ilaahay nebiyullaahi muuse calayhi salaam wuxuu u waxyooday caawa saqda dhexe markay saacaddu ay tahay reer bani israa'iil xakaala baxaan magaalada u sheeg waan baxayaa ku dhahay fa asri bicibaadii leylan inakum muttabacuun fa asri bicibaadii addoommahayga caawa dheelmi baa lagu yidhi muusow markaasuu nebi muuse iclaam uu bixiyey wuxuu ihi caawa saacaddaa markay tahay waan baxaynaa qof buu ugu sheegay qof xaggeen tegaynaa ma garanayo amar ilaahay weeyaan bax baa layga yidhi reer bani israa'iilna ha ku raacaan baa la yidhi qofkii halkaa ku hadhana isaga u taallaa amarkaasaan qaadanaya anigu iyo haddaad i raacaysaan ood i adeecaysaan alaadiina urursada waan baxaynaaye 600 oo kun baa lagu qiyaasay ilaa iyo 40 kun oo dumar iyo ubad iyo agoommo iyo odayaal iyo dhallinyaro iskugu jira habeen madoobay ka bixeen dalkii waagii markuu bariyey ayuu arkay fircoon magaaladii oo cidla cad xaggii reer bani israa'iil ay deganaayeenoo madhan markaasuu fircoon wuxuu yidhi aawey reer bani israa'iil markaasaa lagu yidhi way baxeen oo xaggaasay u baxeen raadkoogii buu markaas soo dabaguray isaguna fircoon muxuu sameeyey dumar iyo ubad mooyaane dalkii cid kale kagama iman baa layidhi wixii rag jiray oo dhan fircoon darayskii hubka soo qaatay buu ku yidhi xaggeen tegaynaa shardimadaa yare kooxdaa yare sharka badan laynaga cadhaysiisay ayaan ka daba tegaynaa mid baan u qabanaynaa boortaan ka goynaynaa khalaas adduunka waan ka qaadaynaa boqoladaas muuse calayhi salaam amar buu ku socdaa xagga amar baa laga yidhi bas wuu socdaa reer bani israa'iil way daba socdaan fircoon iyo ciidankiisii baa soo gaadhay waa ka ilaahay qur-aanka inoogaga sheekayay fi suurati shucaraa falama tara'a aljamcaan qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun qaala kalaa ina maciya rabbii sayahdiin labadii jamc markay arkeen baa ilaahay yidhi indhahoogii isqabteen qoladii muuse la socotee muslimiinta ahayd ee iimaankoogu daciifka ahaa waxay yidhaahdeen yaa muuse annaka maanta waa lana haleelo way noo dhammaatay muuse muxuu yidhi markaa muxuu yidhi kalaa may saaad arrinku moodaysaan maaha fircoonna ima soo gaadhi karo baduna aniga ima qarqin karto waayo amar baan ku soo baxay amar ilaahay ilaaha amarkiisa aan ku soo baxay garabkayga ka bixi maayo ilaahay baa macayga oo ila jira buu yidhi yaa ila jira ina maciya xataa ma odhan baa la yidhi ina macanaa muxuu yidhi ina maciya khaasa laysat caama keligay ilaahay baa ila jira buu yidhi mana kalaa ma dhici karta weeyaan intuu amarkiisa igu soo saaray inuu cadowgiisa gacanta ii geliyo maytaa ma sugaya anu gargaar baan sugayaa dariiqan ku badbaadayana isagaa ii sheegaya buri igu hadaynaya samada mala kama soo degin samada hub lagama soo dhaadhicin samada ciidan kama soo dhaadhicin samada waxaa ka soo dhaadegay amar keliya bas amarkaa muxuu ahaa
أمركم محوها وش هذا بدأ كله بس كبريت كمارك كبريت قرير ما كنت جرا لكن هذين لا استعماله وحصوره قلين كلام مقالة لما ينقبوا سيدا كبريت كذب وقود حجره أي أمر كإلهينا واحد كود حجره قرقار كإلهي فموسى وحو يقيسن يهي قاد شد أمر كإلهي وقادنا يو إنه قرقار كإلهي كجرا ماشا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالضوض العظيم بإلهي لبيت من جلب بهايان لبيت من طريق الله فري ماشي مريان وإنجي بيه نسيت مراد الله جوجي السماء كر قوم موسى مركب قبيل والبا أي مل أي قادين مرين ماشي دول سعدنا وإنجي جيش فرعون وصوري مركب مادين وين نحن مركب وجوك سنين بالليل معي أركان بيه والسماء صدا كون اسكو تاجو يا ريبن إسرائيل ودول إنجيكسن راح يعاين بيها دحدودي وين نحن مركب عيدا كيف فرعون وين بقين فرعون بيدي فرعون لفتي يسوق بقي بالليل ساس اسكو تاجو وحو أركي وح عقلي بين هذا كوي ماشي وخدعي بدن ولا كلا جاحي وبيه كرلو تاجي والله بيه تمن كجلبنا يا عيان فرس كيف فرعون مركا فرعون فرس كيسي وجوجي خلاص ونحي عيدا كيسيونا ويجوعان إلهي وحكيم وحصول أدعي إلهي جبريل عليه السلام وجين يفوش جين يوم فرعون فرس كان وفوشيه وفرس قوقا فرس وقوقيه جين يدي جبريل وتيبه هر مرتبه لده وقشد طريق يكون عليه فرس كان فرعون فرس كيسو قوق مجيده ودبا orda leeyay jeeshii fircoon waxay moodeen haybada fircoon badu inay ku kala kacdayo isagiina waa ka ku dhaadhacay gale ka daba gala فرعون jeeshkiisi wuxuu ku halaagsamay baa leeyay faraskiisa oo qooqan buu ku halaagsamay jeeshkiisi ma baxsan karo inuu yaku waxay moodayaan fircoon inuu faraska wato faraska fircoon ma wato faraska geeyadan buu eeganaya uu qooqan yahay gaar buu leeyahay fuu geeyadana jibriil baa wata calayhi salaam uu sii daayay markii jeeshka fircoonkii u horeeyay ilaa koogii u dambeeyay markuu ku soo dhaadhacay biyihii ayaa ilaahay biyihii isku soo celiyay jibriil baa soo noqdo ku yiri ya fircawn miyaad xasuusan tahay maalintii warqada aad saxiixday shaabadiisii buu tusay maxaa ku qoran warqada jibriil baa u tagay qasriga markuu joogo rabbinimada sheegtay markaasuu ku yiri addoomahay addoon anigu aan leeyahay anuu sayidkiisii hadduu sayidnimo ii sheegtay fircoonow maxaa lagu sameeyaa markaasuu ma addoon adigu aan leedahay sayidnimo kuu sheegtay haa meel kale ha ku dilina madaxa intood qabato qalbiga madaxa u geli buu ka yidhi halkaa ku dhintay markaas dee boqorkii dhanaa waddankaa tee hadhow bilow lagu qabsay meel lagu qabsan maayo saxiix uu saxiixay baa layidhi warqadii buu tusay saxiixa aduma saxiixin addoon sayidnimo sheegtay in biyo lagu halaago soo aduma saxiixin haa cid kale ma ahayn adiga ahayd buu yidhi aniguna malag baan ahay bashar ma ihi buu yidhi حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين غرقي مركو هذا ليب فرعون قرتي إن نبي موسى طريقتي سؤالتها طريقتها كلية صحدا إن دين الإسلام كويتها دين كلية جرتا مركا سويري كي أي ريب إسرائيل الروميين أي أنا قلنا مات لقى بالآباء الروميستي أنا قلنا أحد المسلمين تكمل أنا هيد مركز على بير ما أنت هذه لا هي قرتي سعودية أربعة فسادية ما يقوقي كبر هل كقاري ما بيت كيسين برناك على صوتوري سيرب إسرائيل وعبرة قاتان وقرتان فرعون إنه هلاك سما أدونك لقى قاعدة كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. سبدنا اللوغما اوي أرلدنا اللوغما اوي بل هلاقيسي مخلوق ودن باكو فرحة يوري كاس ما شاء الله بقول لها نقا قاد أدونكم فسادية لأن عصيان كيسا عقوبة كسودة كيسا عالمك مخلوق ودن باكو دباتون يي أما قفك مؤمن كمركو إلهي أضيع عيو طاعة هذا عبادة هذا صلاة هذا قرآن هذا ذكر هذا صدقة هذا رحمة كسودة كيسا رحمة أنا مخلوق ودن باكو فايدي سنعيه فرعون الله ساسكو بادي وجيشه ذلك ياكو هذي ضمريو يعرو فسو وريغين ملكي ودن waxa la wareegay bani Israa'iil